aniga markaan fiiriyo fikiray dagaalkan farxiyo iyo faarax qorshe aniga la ii diga waay ilaa ninka meesha soo fariisanayo oo wajigiisa waxa way meesha keenay aniga waaye maxaan ku dareentay dhe markaan dagaalka galo oo xogaha wax buusno oo farxiyo muuqaal noocan camala soo fakanayo ilaaha in ku dhaariyo dhabarka toogasho ma tahay mise maaha warna rag wax ma idin sheegaa xarfaani haddaan ugu kala wadaan say u aragtaa macnaha السلام عليكم برنامجك ومقالد وقصلك سان انا افرفرتو alaabtii السلام الله عليكم idinka diidi fiiri waxa qaab darada aan marka ay keentaan ana waxaan xanaaqsanaa barnaamij soo galaa marka saanu barnaamij ku furan yahay bilay waay qaalada ugu qosolka iyo qaraxada badnaa asbuuci la soo dhaaf ma dhigi karno maadaama barnaamijka 12 maalmood maqnaa labada asbuuci la soo dhaafaan dhaheena muuqaaladaas la yaab iyo mucjisooyin ilaa hadda xanaaq waa laga dareemayo iyo mucjisooyin muuqaalka koowaad markaan ku daafuray waa muuqaalkan war xarfaanay ilaahay ma taqaana warniyo furinaana faysan dagaalan ku jirnaa abtiyaalo ragaatiin wixii ila fahmaysaan qaab darada noocan oo kale iga daay inay bir dafaysan ay keenteen biraad dafaysan macna faanay waa idin ka codsanaa muuqaalka hadduu qaab darro yahay dagaalka waxa waaye furinta ka socoto ama dagaalka waxa waaye challenge-ga social media ka socdo nabar hadduu yahay nabarkaas walaa soo bandhigan waxa hayso hor farxiyeen iyo halaal xabaa ka soo fakada walaana laga helayeen abtiyaalo nabarkiina qarsada ceeb ma waa yahay muuqaalkaas aad u iga xanaajiyo laagsiya aad u iga xanaajiyo muuqaalkaas ninkii baaquli boy ah saaxiibkii بالله معلقال muuqaalkan waa baraanki uu baaquli boy sameynayay waa baraankiyadii hore uu sameyn jiray mid kamid ah hadda social media trendka wala hadda uu bilaabay waxa waa soo dib u soo noqday arkay ninkii waxa waa odayga youtube-ka waxa waa maalmahan baraankiya banaanka loo baxayo ilaa balcad la jiro ah nidaam socdo macnaha ninkii odayga youtube-ka ku soo laabtay baaquli boy baraankiyada taqaanina waa soo celiyay marka laas muuqaalkaas si gaar ah wuxuu ugu soo jiitay dadka Soomaalida inay bislaadeen baa dareemaysaa xagga iyo xagga laba ninka istaageen wallahi ilma la garaacay amal ninkii u qeyliyay mafaat macallinkii ilma la garaacay amal u qeyliyay macnaha waxa dareemaysaa dadka niyo waa burjigooda jabay si dhibaato marba u dhex jireen u dhibaatoonayeen xaalad meesha ugu dambeysay ka maraysaa marka muuqaalkaas kale muuqaal wacyigal bulshada heerka ay marayaan macnaha si u bislaadeen bulshada dhibaatada uga tanbadatay xajmiga muuqaal waxa waa ku cabiri kartid waa mafahantay marka baaquli boy baraankiyadaada waxyaalaha noocaan oo kala ah cibra qaadashada oo dadka xataa dhibaatooyinka qalbiyan laga dareemi karaa ka soo dhaxbaxaye hala la socdo ninkii odayga ahaa illa shaqaysto sharaf weyn waaye shaafta ka ooga darane kooshi ma kori tuursha iga dhiib ceeb waaye shaaruqan koyla dollar ii tuursha iga dhiib ceeb waaye $1 ii tuursha iga dhiib ceeb waaye shaaruqan koyla kooshi ma kori oo lagu af Soomaaliyay waay yar kalena barnaamij koraan ku soo qaatay dhalinyaro waxa jiro waxa waaye hindiga Soomaali intay ka dhigaan waliba qaab macquul oo la dhageysan karo ka dhigayo music yar hadii la saaro oo kii hindida aan ahayn mid kale oo Soomaali hadii la saaro dirtada dhasho waay waa salaamaya dhalinyartaas team baabajay kabtan baari iyo ka dhow yihiin vibe boos qaado xariir قالها نك أنا فاهم لا أنا نك أبو قالها نك أنا فاهم لا قالها نكاس وار راح يستمغل جرسي وجي له نكاس وار راح يست ألعبت واحد أيقنت جس كساس لو مشوا قلعي أيقنت والله وار راح يست دانسي نفتر كيس واحد وايد وشقوا باين دانسي نفتر كيس إن لسه دانسين قريب معقول ما دانسيga waag hor lagu tuuran jiro dadka daansiga aan la wada garanayno qofkii laba mar saas loo saabin jiray ma hadeer daansiga naftigiisa shaqo u baahan yahay baasha waa in dadka gadmi karto waa daansiga la isugu soo galay waa yaalo waay next
كسر وبالتيفي هذه وكبلابي مقعدة عبد العزيز شريف سمتك أبوه فرحة بالله عبد العزيز ما والله صومال أنت جويني فرحة منه وضل أوار مرنا ميلا نوبتشات سنت نوب أوار بعد ودك أوار جرتي لحد سجالكي حدنا بيلكم صدق أو حوادث discrimination عنصرية كانتري ودك وحان صومري شن كتوان دل ودك عنصرية بدن دتك وحسد عنصرية مركا فرحة ما جرت qofkaas calooshu ka hadlay maqli jirtay wajiga ilahay calool weligay farxad ma arkin wallahi billahi tallah calooshu ka hadlay subhanallah cunsuriyad faquuq xaasidnimo waxyaalo badan oo ninkaas ka cabanaya si hadda u fiirsana waxa waa inuu xaalada wadanka jiro wallahi kow ay ka tahay laakiin ninkan waa bislaaday asagoo xaalada jir ku tahay oo saako kala la yaab inay xarfaan madaxa la soo galeen ee mikrofon hoos dhigayaan wadanka saanka ku habartaaya farxad ardaydii iskoolka dhiganayso waa geesay waa ninka halkaas ka muuqdo ogahay ninkaas geesay waay يا ودود يا هيو يا صوغو كم شفنا مراكب اصلا هاي كسوغلا هو بارود احيا دنيا احيا زمن احيا دنيا احيا زمن صوغو ardayda waalidiinta oo dhan hadaa dhaa TikTok ay ugu nacab tahay geesay ku dhahayaan sababta taqaana ciyaalkii amaama soo iska fadhiisadana soo qaaqa yaa waduud soogo oo soo هو بارود احيا دنيا احيا زمن احيا دنيا احيا زمن صوغو geesayo ilmaha yararka ee under age ka galaasada kugu dhiganay hal muuqaal u soo duub adhaysid walaalayaal ma ka xbaranaysaan waqtiga bowsaha aniga hal idaawado laakiin marka wax baranaysaan waxbarashada focus ka saara geesayo muuqaalka noocaas baahay wadii kale wallahi waxbarasho dhalinyaro badan imtixaanaadka waaya muuqaalka u dambeeya hala xasxa araba iska baashaalaysi araba kaftamaysi jawdigana lagu jiri ninkii saaxiibkii isti wax balmay ma ogi carabtii oo sheekaysan soo dalaq soo dhahay istiyo hatta maalmaan ku ay carab ma dhax gashay walaalo xagga ma ku maqnay carabta beerka uga dhacday bis iga taxyaar يا ساتر يا ساتر هذا مكان ابو عرب isti dhanka carabta trendga ka ah waa laga yaabaa muuqaalkan waa laga yaabaa in qof intuu ay soo qabteen caraba uu laptop ku aadiyo kale oo saas loo arkayo asaga istiga saxda uu saneyn way dhici kartaa muuqaalkiisa la isticmaalayo inuu asaga meeshaas qasayna waa dhici kartaa isti meel walba galay waxa waa ninkaas waa TikTok aad u fahmay waayahay kuba dheeraarayo 12 days hadda aan keenay awal 12 maalmood 14 maalmood 15 maalmood baqnaan jiray 3 maalmood aan soo dejiyay 12 waa soo dejinaa wali 9 camal saas 7 adiga waxaan barnaamijkan asbuuc la maadaama yahay in asbuuciisa ku ilaaliyaan isku daya raali ahaada barnaamijkii maanta intaasaan kusoo gogoynaya barnaamijkan ay qurux badan oo iga diyaaran document qurux badan like subscribe ciao